halka waxaan ka iclaaminaynaa shir muddo soo socday oo beesha Gadabuursi ah ku salaysan isku xidh wadajir iyo cadowgeega halkan marka koowaad waxaan uga mahad celinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka oo waajibaadkooda gutay wixii dalka weerar ku ahaana joojiyey iminkana na garab taagan faahfaahinta wixii intaa ka badan waxaan leenahay Gadabuursi reerka la yidhaahdo wuu tashaday wuxuu u tashaday cadowgiisa iclaanka wixii ka soo baxay intaa ka badan waxa ay noo haysa halkii lagu xusay warqad baa laynooga akhri doonaa warqadaas baa iclaankeedu ku xusan yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa halkan degmada Xareerad ka socday shir jaraa'id oo laga tashanayo cadowga Soomaaliland ama gobolka Sanaag ku soo duulaya wada tashigaas shirka Gadabuursi ee ka socday degmada Xareerad iyo nawaaxigeeda waxa uu socday 3 cisho waxa ka soo baxay qodobo waxaan markaa aan akhriyaa qodobadii ka soo baxay insha Allah ujeedada shirkani waxa ahaa baaqi iyo qayladaan loo dirayo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beesha Gadabuursi dalka Soomaaliya baaqi iyo qayladaan ay u dirayaan qaranka Soomaaliland iyo beesha Gadabuursi waxa si toos ah halkan uga sheegaynaa inay jirto khalkhal amni darro duulimaad jamhado is-abaabulay iyo wadooyin ka jira gobolka Sanaag waa qodobka koowaad kaasi qodobka labaad waxa ay bilaabeen beesha Ciise inay gaadiidka wadada maraya weerar ku qaadaan iyaga oo hub iyo dhagaxaan kula dagaalamaya safarka cid walba leh waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa dambi weyn oo qaranka dabarjab ku ah oo amniga sii fogeynaya qodobka afraad haddaan nahay beesha Gadabuursi waxaan xakameynaya odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinteeda iyo waxgaradkeeda qodobka shanaad gubista calanka qaranka Soomaaliland oo ah wax laga xumaado dadka falkaas geystay oona weli tallaabo laga qaaday dadkaas oo iyagu soo qaatay dawladaha jaarka nahay calankooda calankii Soomaaliland qaranka Soomaaliland gubay kuwii jaarkana soo qaatay waxay huwanaayeen calankii Soomaaliya kii Jabuuti iyagoo waddanka Soomaaliland gubay lahaana ku dhawaaqayna ma rabna Soomaaliland ku dhawaaqay taasina wax laga xumaado waa inay tallaabo ka qaado dawladda Soomaaliland dadka calanka gubay waxaa ku jira dumar iyo carruur u shaqeeya dawladda Soomaaliland oo mashaarka qaata ku jira iyo mas'uuliyiin baa ku jira وقضبك شناد قضبك اللي حد جمهدها بابعه جمهدها إخلاص ومثل القصة هذا باليوم كلها شناد كل القصة هذا باليوم ودك جبوتي كواس وكسر جوليا Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag waxa hogaaminaya ugaaska iyo gabdhaha Ciise hogaaminaya si ay qalalaasa uga ridaan Soomaaliland ama gobolka gaar ahaan gobolka maxay dhahay Sanaag taasna waxaan dawladda ka codsanaynaa in ay tallaabo ka qaadaan ka codsanayna haddii qodobkayga
toddobaad haddayna difaacayn dowladda somalilan gobolka Sanaag haddaan nahay beesha Gadabuursi waxaan diyaar u nahay inaan difaacano dhulkayaga taasi waa qodobada guud gobolka Sanaag iyo foodooyinka ka socda weeyaan waxay beeshu darnaqsi saami way soo qorotay aan iyadna halkan oo akhriya degmada Xareerad iyo gobolka Sanaag saamiga gobolka Sanaag oo ka hadashay beesha Gadabuursi ee degan degmada Xareerad iyo nawaaxigeeda waxa ay sheegeen halkan ku cadeeyeen in aanay cid uun maxayday saamiga ama maxayda kuraasida loo magacaabo waana beesha Gadabuursi waxba laga siiyay wasaaradaha dhamaantooda hadday heer sare tahay iyo hadday heer hoose tahay qodobadaasna waa inay akhriyo haddaan nahay beelaha Gadabuursi ee degan gobolka Sanaag waxba kuma lihin wasaaradaha gobolka ka shaqeeya xagga sare iyo xagga hoose oo qodobka koobaad qodobka labaad ciidanka qaranka ee Soomaaliya waxa lagu aasaasay degmada Xareerad gaar ahaan halkan maanta aan ka hadlayno joogno jidda malaaseed ee degmada Xareerad beesha Gadabuursi ee degan degmada Xareerad iyo nawaaxigeeda maadaama ay lahaayeen ciidankii ugu horreeyay ee la qarameeyo Soomaaliland waxa aasaasay Allahu naxariisto naxariista jannaha ka waraabiye Axmed Xaaji Bacdoon oo ahaa ninka soo jeeda degmada Xareerad qodobka labaad dadka hadda boqortooyada looga dhigay degmada Xareerad waxay soo degeen 2005 halka beesha Gadabuursi ay ahayd iyadu mid weligeed degan halka waxay Gadabuursi marka hore soo lahaayeen saddexdii gudoomiye horeysay Muuse Maxamuud oo loo yaqaanay soo toose kii labaad ahaa Xasan Nuur Cali gudoomiye labaad Xasan Nuur Cali ahaa gudoomiye saddexaadna Maxamuud Sawaalu ahaa oo loo yaqaanay iyo cabdi milcaad intii taa ka dambaysay waxay dawladdu iyadoona eegayn cadaalad iyo ummadda degan Xareerad iyo nawaaxigeeda waxay markasta u soo magacawdaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenka taliyaha iyo taliye ku-xigeenka ka kastamada waxaasoo dhan waxay u soo magacawdaa ciddii shalay magaalada timaday iyadoona eegayn xitaa maxkamadda wixii ka jiray macnaha degmada Xareerad cid ayay u soo magacawdaa waa qodobkayga saddexaad weey qodobkayga afraad degmada Xareerad waxaa hoos yimaada 12 goobood baa hoos yimaada 10 ka mid ah waxaa degan beesha Gadabuursi halka labada kalena ay ka degan yihiin reerka kale cidda Xareerad wax soo gelisay degmada Xareerad ee dhaqaale soo gelisay waa cidda 10 goobood degan weeyaan marka dawladda degan qodobkayga shanaad maadaama sidaa tahay waxa xaq u leh gudoomiyaha iyo ku-xigeenka degmada Xareerad beesha Gadabuursi ee degan goobaha ugu badan degmada Xareerad qodobkayga lixaad lama arag degmo dhammaanteed wasaaradaha ka shaqeeya heerun loo wada magacaabo lama arag waxaa iska soo daba maray 10 gudoomiye iyo ku-xigeen taasna cadaalad uma aragto beesha Gadabuursi qodobkayga toddobaad waxa ay dawladdu siisay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka taliyaha ku-xigeenka gudoomiyaha kastanka maxkamadda reer kaliya intaasoo sano waxay xubnaha ugu sarreeya degmada ku maamustaa reer kaliya iyagoo ku kali dulqaadkooda weli dibadda kaga jooga qodobkayga sideedaad waxaa xaq u leh gudoomiyaha iyo ku-xigeenka beesha
gadabuursi qodobkayga sagaalaad waxaa ka codsanaynaa dawladda inay hoos u eegto cadaaladda kana tigto wixii khilaaf u keenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan halkan uga mahad celinayaa gadabuursiga marxaladda ku soo aadan cidda ilaahay daray ee waajib ku ah guud ahaan gadabuursiba beelaha siday u dhan yihiin waxaan uga mahad celinayaa lambar 1 bilad sharafta koowaad ee gadabuursiga maanta waxaa iska leh lafa ciise raggii xalay halkaa ka dhiibtay aragtidoodii qaaliga ahayd iyo jiritaankoogii dadnimo waxaan leeyahay abkayow waadna deeqdeen idinkuye allaha darajo idinku siiyo soomaalidu waxay ku maahmaahdaa reerkaan ay lahayn ayga kalaa u kaadi tegay soomaalidu tidhaahdaa war gadabuursi waxaan leeyahay haddii uu lafa ciise uun gelayeyna waynu aragnay gurmadkoogii waan haynaa xalay bay hadleen maantana waxaan rajaynaynaa hiil iyo hooba inay degmada gudaheega warkoogu maanta aw joogo oy berrina taagan yihiin gadabuursi meel kastuu joogo waxaan ugu baaqayaa walaalayaal maanta waa maalintii la yidhi nin raga waxba loo sheegi maayo doqonna warkeegayga dah waxaan idiin sheegayaa waxaad innigu garanaysiin waad garanaysaan waxaan anigu rabaana waxaa weeye war halkan wax nabadahoo taallaay ma jiro dadku anigu waan ka aragti duwanahoo waxay yidhaahdaan dadku waxay haysta Somaliland iyo reer Somaliland calankaa lagu midoobo calanka kuwa soo socdiya kuweennuba waanu simanna war laakiin ciidda umaanaan sinina innaga iskale maadaamoon innagu hadalka leenahay waxaan leeyahay gadabuursi sida uu loogu soo duulayo saylac ha loo difaacda saylac beelaha gadabuursi dal iyo dibadba meel kasta oo ay joogaan war fadhiinimo yaallo waxaa laga rabaa sida ugu dhaqsaha badan leh in hiil iyo hoo iyo adinba la idinka helo saylac dal iyo dibadba looma kala hadhayo waxaan dirayaa waa gurmad degdega waa emergency weeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu